وحلاقي مركا وعائلته هرمركا يو hawlaha xusbiga kulmiye qabtay ama xukuumadan ha ahaato ama xukuumadii hore kulmiye waynu ka wada dheregsanahay oo wax badan isaga sheegmayn laakiin maalmahan waxaynu maqlaynay xusbiga wadani madaxdiisa oo ka codsanaysa bulshada reer Somaliland milyanka iyo 200 codaynaysa inay codkooda siiyaan xaq bay u leeyihiin inay codka weydiistaan bulshada laakiin waxa la isweydiinaya bulshadu maxay codka ku bixinaysaa xusbiga wadani inuu doorashooyinka qaranka baajiyo ayaa codka lagu siinayaa xusbiga wadani laba doorasho oo wadanka ka dhici lahaa labadaba isaga baajiyay doorashadii baarlamaanka ee 2019 kii dhici lahayd wadani oo diiday komishankii doorashooyinka qaranka ayay u baaqatay oo u dhici weyday doorashadii madaxweynaha ee dhici lahayd 2022 xusbiga wadani oo daraadii komishankii aan gudoomiyaha u ahaa u kala tegay ayaa xaqiiqdii baajiyay caawa waxaan la ka cadeynaya komishankii doorashooyinka isagoo doorashadii u diyaar tahay ayaa sababo xusbiga wadani leeyahay uu kala tegay waxa la yaab loo isweydiinaya xusbi mucaarida oo kursi dooraya oo haddana doorasho walba baajinaya waxaan isleeyahay doorashada maanta budaysani inay u baaqato muranka wadani bay u badan tahay sababta waxa weeye hadeer baa maqlaysaa in la diidayo qalabkii inuu uga dhigi lahaa doorashada xor iyo xalaal in la hor taagan yahay oo la leeyahay laguma gelayo ama ma yeelayo waa marmarsiiyihii Soomaalidu waxay tiraa hal diidaysaa geeday ku xoqato ma weyn haddaba sababtu waa maxay anu waxaan isleeyahay shakhsiyan Somaliland waxa ay leedahay ee ugu qurux badani waxa weeyaan arrimaha dimuqraadiyadda iyo doorashooyin arrimahaas ayaad moodaa in xusbigeena qaran uu ka hor imanayo mar walba waxaan isweydiinaynaa xusbiga wadani wuxuu yiri milyan iyo 200 baan cod ka doonaynaa ma jabhadii caaraynu ku dooranaynaa oo rikoodhka ugu jirta ma jabhadii oo fureen baynu ku dooranaynaa oo rikoodhka ugu jirta maayda siilaanyo iyo in maxkamad la saaro iyo inuu khaayin yahay ayaynu ku dooranaynaa wadani ma waxaynu ku dooranaynaa cayda madaxweynaha qaranka ee aynu xilka u dhiibanay ee aynu inagu dooranay miyaanay ahayn in inaga layna caayo marka madaxweynihii aad doorateen la caayo miyaanay idinkaydu ku socon caydu oo laydin lahayn waxba ma idu kala garanay ma waxaynu ku dooranaynaa cayda maxamed kaahin iyo siciid sulub iyo madaxda qaranka miyaynu ku dooranaynaa wadani oo cod inagu weydiisanaya waxay la tahay inaynaan ku dooran karin wax kale oo wanaag ah oo wadani sheegayana aanay jirin especially reer Berbera waxa ogtihiin inuu wadani ka hor yimi maalgelinta Berbera la geelinayay iyo dekada Berbera iyo DP World inuu si cad u diiday oo ay tahay waxa la leeyahay Siilaanyo waa khaayin oo maxkamad baa lagu saaray inuu dalkiisa iyo dadkiisa wax soo kordhiyo waxaynu barbar dhigaynaa haddaynu intaa yara kooban ka taabanno wadani waxaynu barbar dhigaynaa maxaynu kulmiye ku dooranaynaa markaynu
maalgelin iyo wadooyin iyo hawlihii xukuumaddii kulmiye ee Siilaanyo hogaaminayay ka nimaadno xukuumaddan hadda joogtay Muuse madaxweynaha ka yahay waxaynu ku dooranaynaa laba saddex qodob baan idinka taabanaya qodobka koowaad waxa weeye shaqo qaran oo ay og tihiin in dhallinyaradeenii ay si xora qalinkooda iyo caqligooda iyo aqoontooda shaqo ku wada heleen oo lagu tababaray waxaanan ugu baaqayaa dhallinyarada shaqo qaran inay abaal gudaan oo kulmiye iyo xukuumaddii u keentay u abaal gudaan waxaynu ku dooranaynaa 101 degmo oo ay 6 degmo ku leedahay saaxil oo aan kulmiyahan ka hor weligood la siinin horumar iyo dhaqaale midna iyagana waxaan ugu baaqayaa maayrada 101 degmo iyaguna inay abaal gudaan oo xusuustaan xukuumaddan iyo wixii ay u qabatay waxaynu ku dooranaynaa ictiraafka miiska saaran ee uu ka soo shaqeeyey wadee ma dhammayn karo waa laydin taagay dhowr jeerna waa layla hadlay aad bay u fara badan tahay runtii inahaasaan kaga tegayaa